sidii bini aadamkii u soo labisteen sidii bini aadamkii oo fadhiya waa maasantihiin aniga muddooyinkaan ma hadlan inaa weydiiyo wuxuu yiri aniga intaan ma hadlan maxaa kugu dhac anuu waxaan yiri hadda ka hor salaad cali jeel qolo wariyaal u tageen kaasay dhaawaniyo markii hore to dawladdan farmaajo markii ka horeysay haddaad hadasho warkaagu waa maca jire maxaa kugu dhacay hadda dhadhan lahana markaasuu jira hadda wuxuu yiri intan baasta markii hore wuxuu yiri cambuulaan cuni jiray cambuulaan daaca jiray digaraan cuni jiray digaraan jaacan jiray yani waxaan aaminsanahay iyo waxaan sheegaa islahay ku wada jiray hadalka saasuu dhadhan u lahaa hadda wuxuu yiri baasta inta la isiiyo aleeyo cambuula inta la isiiyo baasta daaca leeyo warka dhadhan ma laha marka waa dareemi karteen marka nimaan cambuulana la siin baastana la siin inuu soo warrami karo marka intaas markaan ka soo tago waxaan islaa xoogaa dadka shuushka ka bixi runtii ammaanka magaalada muqdisho maalinba marxalad u maraay taariikhda dhow intaan xasuusanana maantay meeshii ugu fiicnaay ama xilli ugu fiicnaay ayuu joogaa waxaan jeclahay akhyaarta ka soo shaqaystay ama ha noqdaan gobolka banaadir ama ha noqdaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ama dadweynaha Soomaaliyeed ama guud ahaan dawladda iyo xukuumadda ay u horeysay inaan u mahad celino ninkan bini aadamka shaqeeyo u mahad celin ilaahayna u mahad celiyo waa mahadsantiin aniga waxaan xasuustaa 2010 July 2 ayaa meeshan dagaal culus ka dhacay halkan aan taagana shabaab intana waa maray curabu gaaray xaggana waa waray wasaaradda arrimaha gudaha gaaray intana waa soo galay wuxuu galay daljirka daxsoon u tagay haddii saraakiishii la waayo oo wax kasta la waayo sheekh shariif aan soo horkacay oo madaxweyne markaas ahay sheekh shariif wuxuu fadhiistay Juba aniga iyo taliyaha booliiska iyo rag kale fara badan iyo maxamed dheer Allahu naxariisteena waa la soconaa iyo Muuse Suudi meeshaana la isku galay taagan yahay amsomtii waxa isfahmi waayay askartii aniga iyo Cabdikariin Jaamacne la yiraahdo chief of staff u ahaa madaxweynaha ayaa la yiri taga xabaduna waxay nimo ku saaran yihiin meeshaan nabad sugidda sartaana waa ku jiraan global waa saaran yihiin gaadiidka booliiska waa saaran yihiin xaggana saldhigaasay taagan yihiin waa soo dardarnay meeshaan soo istaagnay dirishadaana horta gaandhirigaani lagu toogtay daruulkii afiir maagay asagana waa la toogtay aniga Cabdikariin Jaamac iyo labadii nin oo Ugandheeska oo meeda from 11:30 shan saac bar ilaa 9 saac meeshaan daaqadaan hor taagnay nimankun intii joogeen xaggana waa joogeen gadaasheena waa mareen 9 saac bar 4 saac ku dhawaadaan horta meeshaan ku jirno maantana meeshu hadda ammaankeedu maraay waad aragtay sacrifice fara badan ayaa loo soo maray laakiin nima laga sheegay intuu hadda koor dabakaayo ka furtay suuq ayaa laga jabsaday habeen xoogaa sokor u tiila laga qaatay ayaanu shiiday markuu suuqyada waaweyn soo mar wuxuu laaniyo baqaaradan markay sokorta taalo loor leega xaday ka bilaabatay hadda magaalada muqdisho inay nabad ahaato kaliya dadka jooga kama shaqeyneen macawiisleeya ka shaqeysa haddii aan xabadda matabaanta laga bilaabay xaggana aaday baa loo keenay ama xeebta loo keenay xaggana hadda socota jeex ma la mase shabeelow dhaaftay oo caad maraysa kol macawiisley ahayn qaraxyadii meeshan loogu tala galay waa kuwa maxas ka dhacay oo buluburda ka dhacay oo baladweyne ka dhacay oo dhuusamareeb ka dhacay oo almost lagu sigay naftiisa inuu ku waayo madaxweynihii galmudug oo ka dhacay wasiil agteeda mase waxay ahayd magaci meeshaas maxay ahayd ya bacaad weyn agteeda ha dagaalna sidiisa waxa la the best defense waa offense difaaca ugu horeeya maxaan ku dhahaa difaac waxa lagu sugaa waa weerar magaalo haddaad aragto ammaankeeda qori lagu sugaa ammaan kama jiro magaalo haddaad aragto madaxdeeda qoriyo ku dhex wadato ammaan kama jiro adduunka meesha kaliya nin madaxu hadduu rabo inuu tima soo jirto dabajeex lagu waardeyn horta muqdisho ka jirta wajigaas in laga badana very important waa muhiim hadda xakamaynta hubka ayaa la sheegay
waa la soo xakamay daba jeexi meel la soo dhigay technically meel la soo dhigay 2024 waxaa la rabaa qoray in laga mamnuuco magaalada dadku dabaalma marka qoryaha jidadka la taagan yahay macnaheedu wadada waxba la caburnoya laakiin qoryuhu markay qarsan yihiin dadku si kasta amaan dar u tahay sense of security direen nabadu dareemoya London lagu ilaaliyo qoray Dubai lagu ilaaliyo Nairobi lagu ilaaliyo meel qoray la taagan yahay adduunka ma jiraan sababtuna waxay tahay qoray meel la taagan yahay nabadu kama jirto annaga waxaan la ka rabaa marka wasiirada ra'iisul wasaare Cabdibilayaasha lagu waardeynaa horta Cabdibilayaasha ka reeb oo jidad ku furnaa magaalo sideedaba amaanka impressionkiisa koobaad hub dhigis waa magaalo qoryaal magaalo amaankeedu sugan yahay ma haddeertaan aniga laba mar aan tilahayn abu sugid soo noqdo hadda inaan sheego ma rabo weligay magaalada Muqdisho qoray kuma qaada in my life iyo hadda shaabayga nacibiya ma uu islaan ana hogaamina waanigi laamiga jidadka soo qeynay soo ma magaaladan qoryaha laga dhigo oo qoryahaas dagaalka shabaab la aado ciidanka amaanka sugay waa mahadsan yihiin amaanku waa meesha kaliya oo ay tahay qof walba inuu ka shaqeeyo laakiin ma ahan qof walba inuu hogaamiyo traffic kala waa traffic hal baabuurnimo wado baabuurka sana waa wada oo maxay tahay hadii uu jidka traffic taagnayn oo soco adigu istaag saan leh baabuurta isku wada dhacaysa siyaasadda la isku qabqabsan karaa amaanka la isku qabsan karo waxaa la rabaa amaanka marka hormoodkiisu in cidda mas'uulka ka ah coordination gobolka Banaadir ayaga waxa laga rabaa inay yiraahdaan amaanka hal sugo sida loo sugaay shaqadooda ma it's none of their business sida loo sugaay waxa mas'uulka cidda amarkaas la siiyay ayagu waa daba taagan yihiin kaalmadii laga rabaa shaqadii laga rabaa wixii dadkan u baahnaa laga rabaa ra'iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaadu waa mahadsantiin gobolka Banaadir waa mahadsantiin dadka Soomaaliyeed waa mahadsan yihiin shabaab maanta waa dhaawacan yahay hal dhameystiro iyo soo nagu soo kacin maanta oo dhan rajaa wuxuu qabaa inaan daalno oon isqabqabsano oon shaqada dayacno waxaana la ka rabaa sidii 2023 loo soo shaqeeyay si ka daran in loo shaqeeyo oo la laba kacleeyo guusha waa noo dhowdahay dagaalka la xoojiyo dagaalka lagu noqdo shabaab waxaan aaminsanahay 2024 in la soo afjari karo ciidanka amaanka magaalada Muqdisho ka suuqay waa mahadsan yihiin gobolka Banaadir waa mahadsan yihiin madaxda Soomaaliyeed dhamaantood waa mahadsan yihiin gobolka Banaadir baarlamaanka iska dhaafa kale baarlamaanka asna waa warrami kariya waa mahadsantiin salaamu calaykum